dhaxayso cid walba meel kasta ay joogto we love you so much aniga adiga yaraantii waa soo kornay dad walaalaha ahayn dad wada dhashaa ahayn maasha allah walaasha Yurub Shabeel waqti fiican xilliga madaxweynaha ahayd bay kula qaadatay ana I love you so much walaal jira waxaan maanta ilaahay kaaga baryayaa in aad Soomaali isku hogaamiso Soomaali isku wado cid kasta oo khaldan cid kasta oo ka hortimaada inaad guulaysato Soomaalidu waxa laga sheegay hadda ka hor isagoo maartay inta la caleemo saaray ugaas laga dhigay ama macnaha Soomaalidu ugaas ama boqor ama dila ku imaam laga dhigay wuxuu yiri isagoo la sido oo aad loo sido kor ugu hayo wuxuu yiri baalin kaligiis halka taagan afka buuriya arkaysiyo idiga dhulka idiga waa la dhigay markaasuu ninkii u tagay markaasuu yiri wareede hal qof oo Soomaali ah oo ama hal qof oo reerkayga ah oo haddii la ku ilma iga soo horjeeda aniga wali ugaas ma noqon ugaas waxaan ahay marka dadku dhan i raacaan maxaa rabtaa maxaa kuu dara maxaa kana ninkii maasha allah wuu farxay wuu qoslay wuxuu yiri waa ku taageeray dadku Soomaalidu walaalow waxaan ahayn wax lagu waa walaal macaano walaal maxaan qabtaa walaal maxaan yeelaa Soomaalidu intaas u baahata Soomaali ha israacdo ha guulaysato guul iyo gobonimo we love you always ما شاء الله عادي meeshaan waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdullaahi oo u hambalyeynaya Xasan Sheekh Cabdullaahi laba kelmood Xasan Sheekh maxaa leedahay ما شاء الله مدحوينها عصب مدحويني تمناد مركل حسن الشيخ وانا همبليانيا anagoo ahayn isbeddeldoonka maanta guul baan ugu dhamaatay waxaan leeyahay mar labaad hambalyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad baa u mahadsan tahay haddana ku soo dhawaada master Caydiid maxaa leedahay الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كوبي كده عاو فرحتها aan farxsan aad iyo aad guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo ما شاء الله guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo Soomaali ha noolaato حاجي عبد القادر حسين حسن وعمردي هذا كلمة انجينير كسر نوو بالنا محل لما كلمة حسن شيخ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الحمد لله شكر رب العالمين مدن مدحوين عصب بروفيسور حسن الشيخ محمود وندعو عيني يا الحمد لله وعلى الله ان شاء الله تعالى سو دواو congratulation همبليو marna abtiyaan u ahay marna abtii uu yahay alxamdulillah waxaan uga soo duceeyay Makka iyo Madiina ramadaankii ayaan joogay alxamdulillah Makka iyo Madiina xaramayn shariifeyn ayaan joogay alxamdulillah muddo dheer aan taageersanaa waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow farmaajada no problem maartay waqtigaadi waa qaadatay mudane farmaajo hol badan soo qabatay dib male carabtu ay tiraa yoom lag yoom qayrak yoom lag yoom qayrak macnaha waxa weeye waqtigaadi waa soo qaadatay Xasan Sheekh hore uu qabtay uu kugu wareejiyay marka waxaan ka codsanaya madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore inaad si sharaf leh aad villada ugu wareejiso madaxweynaha cusub حسن الشيخ محمود أنا وحنا غير شباب وعن كل شيء كوكو بلدوين لندن وحنا جوجا صدق إلا بصرة مركا الحمد لله وتاجر سنة هاي حسن الشيخ محمود أفتقي أما أفتي سولو كونجراتوليشن همبلي صاحبك قضية ريال برمنغهام غير لندن مركا إنجنير عبد القادر إنجنيركو أدي وهمبلي الحاج عبد القادر aad buu hambaliyay waa soo duceeyay madaxweyne soo dhaw buu leeyahay farmaajo oday Soomaaliyeed buu ahayd shaqo badan buu soo qabtay dhamaan waxa leenahay waa oday Soomaaliyeed farmaajo kulli xasan meeshaan waxaan ku soo dhaweynaynaa hanad maxaa leedahay laba kelmadood madaxweyne Xasan Sheekh أنا همبليو مدحوينه حسن الشيخ مدحوينه 4 سنة soo socoto محمد عبد الله فرماجنا وكما هتسيني هاي الناس سو gaarsiiyay waa labadeeda madaxweyne marka Soomaali guul baan u rajeynayaa iyo guul iyo gobonimo insha Allah madaxweynahana halala shaqeeyo inta waqtigiisa uu joogo aad iyo aad buu u mahadsan yahay hanad waxa la dhahayaa qof walba oo Soomaali oo maag qabto wuxuu leeyahay
halala shaqeey xasan sheekh halala shaqeey xasan sheekh waxaan leenahay xasan sheekh aad iyo aad baa u mahadsan tahay soo dhowow soomaalina aday maanta hoostaada taagan yihiin si fiican aad iyo aad muuse ayaan ku soo dhaweynayaa mikrofonka maxaa leedahay xasan sheekh ku soo dhawow xasan sheekh waxa weeyaan wadanigii hadda rasmiga ahaa dadka hogaami lahaa si fiican u hogaami lahaa waa asaga ha guulaysto ha noolaado madaxweyne farmaajo kelmad sii oday Soomaaliyeed shaqo badan buu soo qabtay maxaa leedahay waxa weeyaan waa madaxweynihii hore waa sax shaqo weyn oo soo qabtay waa sax nimba meel heer uu soo gaarsiiyey waa siday tahay hadda heerkooda maxamed xasan sheekh maxamuud ka sii wadahaya yes isaga dhameystiraya waxa weeyaan next waxaan ku soo dhaweynayaa dhalinyaradii telefishinka daawanaysay ee u hambalyeynaya xasan sheekh ku soo dhawow walaalo waan ku dhowahay bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waxa waaye maxamed maxamuud almi sida joognaa goobta maqaayadda waxaan toos aan wada daawanayaa doorashadii maanta halkan ka dhacday dad badan baa halkan isugu yimaaday oo kala aragtiyo duwanaa qaarkood waxay taageersanaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaarkood waxay taageersanaayeen farmaajo anigu waxaa ka mid ahaa tiimkay taageersanaa xasan sheekh maxamuud sidaad aragtaanba waa guulaystay tiimkayga waa guulaystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa leeyahay hambalyo waxaa dadka Soomaaliyeed aan u rajaynayaa guul iyo gobonimo Soomaaliyeed midooba laba kelmad walaalo maxaa leedahay xasan adoo u hambalyeynaya xasan waxaa leeyahay allah ka dhigay dalkiisa iyo diintiisa anfaco aad iyo aad aan u taageersanaa madaxweynaha cusub haddartan waana soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala waana u duceynaynaa haddii uu wax qaldana waa sheegaynaa haddii uu wax saxana waa sheegaynaa sidii kal horeba aan u sheegi jirnay insha allahu tacaala waana mahadsantihiin maanta waa taariikh maasha allah insha allahu tacaala saasaan isku aad iyo aad baa u mahadsantihiin farmaajo shaquu qabtay xasan baana sii dhammaystiraya marka madaxweyne kasta meel buuna gaarsiin doonaa madaxweynaha cusub baana noo dhammaystiri doonaa maasha allah waa la kala guulaystay si fiican baana loo kala guulaystay waxaan leenahay xasan sheekho hore u soco wixii qaladkana sax haddii ilaahay yiraahdo ilaahayna kula garab galo thank you adoo u hambalyeynaya xasan sheekh maxaa leedahay xasan sheekh waxaan leeyahay madaxweynaha ummadda cusub hambalyo waxaan ugu hambalyeynaynaa allaha kula garab gala xilka lagu doortay ummaddana waxaan u rajaynaynaa kuwii taageersanaa iyo kuwan taageersanaynba inay niyadda u furaan waayo hadda doorashada way dhammaatay nin kasta ama farmaajo taageer ama taageer madaxweynaha cusub kuleeto danta ummadda waxaa weeye inaan hal meel u wada jeesano inaan isku tanaasulno madaxda waxaan leeyahay kuwii hore iyo kuwa hadda iyo kuwa la dooro doonaba dhammaantiin ummadda nasiibkeeda meeshuu jiro iyo danta ummadda laga wada shaqeeyo aad iyo aad u maadsanta walaal waxa waaye xasan iyo farmaajo waa isku midkii mar walbana nin baa noo talin lahaa madaxweyne noo noqon lahaa marka waxaan leenahay xasan sheekoo soo dhawow horeyna u soco wixii la qaldanay sax ilaahayna kula garab galo waxaan leenahay qofka ugu dambeeyo inaan baraarujiyada wuxuu yahay waa gartay hadda meesha aan joogno waxaan u baahannahay inaan horey one step aan hore uga sii soconno iyo ka badan ma ahan inaan fiirino wixii la dhaafay wixii soo maray iyo waxyaabaha kaleeto oo dadka niyaddooda ku jira aan hore uga soconno Soomaali midaysan iyo inaan danta ummadda meesha ku jirto aan garanno aan ka wada shaqeyno marka Soomaaliya meel kasoo joogto guul ayaan leenahay waan u hambaleynaynaa maasha allah Soomaaliya guul baan leenahay farmaajo khayr waa dadaaleen farmaajo roobna waa dadaaleen xasan iyo prime ministerkiisana waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay wax saxa ilaa hadda idinku baan ilaa hambaleynayaa aad baa u mahadsantihiin mac salaama walaal aad baa u mahadsantahay meeshaan waxaan ku wareysanaynaa professor cabdicasiis madaxweyne doorashadii waxaan ku wareysanaynaa macal wiilwaal oo iniha oo xasan sheekh u hambalyeynaa hambalyo madaxweyne xasan sheekh waa sax oo ku guuleystay kuwistaan
بريسنت أو سومالي اوكي أمبليو همبليو حسن هي محل بسم الله الرحمن الرحيم أمبليو انت مقعيga iyo muuqayga taqaanaba caawa aad ayaan u faraxsanahay madaxaana furan caawa madaxweyne xasan sheekh ayaan u tahniyadeynaynaa tahniyadaas aan uga soo dirayno dalka UK London anigoo ah علي عبد الله ما شاء الله علي عبد الله aad iyo aad baa u mahadsantahay madaxweyne farmaajo maxaa leedahay madaxweyne farmaajona waxaan leenahay wuxuu soo maray 5 sano iyo xoogaa isjiidjiida marka waxaan leenahay dee aad iyo aad baa u mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay khayrna hortiisa Allah dhigo hortaada ilaahay dhigo oday baa tahay oday Soomaaliyeed soo dhawow wixii oo dhan waxa isku fuuqsaday xasan sheekh soo dhawow caawa madaxaana furan aad u mahadsantahay waxaan ku wareysanaynaa sheekh cabdinaasir ku soo dhawow adoo kelmad lahaya xasan sheekh xasan waxba ma dhahayo Soomaali oo dhanna waa u hambalyeynaya hambalyadana dibaan fasirkeeda ka soo galaya oo gabaala ka hadlayna Soomaaliyana u hambalyeynayna maana dawlad u dhalatay u hambalyeynayno maalintii qof shakhsiya u hambalyeynayno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxaa laba kelmad bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeyso waxaan u hambalyeynaa madaxweynaheena cusub jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay ninkii xilkiisa imaamul caadil noqdo Allah ka dhigo oo dadka u dhaxeeyo waxaan leenahay madaxweynihii hore oo maxamed cabdullaahi farmaajo asigana waa mahadsan yahay xilka siduu maaragtay noogu soo hayay waa madaxweynihii hore laakiin ma hadda ugu weyn waxaan u dirayaa ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble oo ah nin xilkiisa si xilkasnimo u gutay waxaan leenahay maxamed xuseen rooble waa inta loo dhisaa madaxweyne xasan sheekh waxaan leenahay ra'iisul wasaarihii hore waa inaad maaragtay nin shaqadiisa guto ahaa waa inta looga dhisaa magaalada muqdisho وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدحوينه فرماجه محل هذا مدحوينه شقه بدن بو سو قبتay مدحوينه فرماجه waxaa oday Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada oo wadankeena ku hogaaminaya horumarku ka siiyay marka asigana waxaan leenahay oday Soomaaliyeed tahay wadanka waxa ku leedahay xurmo ku leedahay waa sax weeye ilaahay adigana ma ilaahay kula qalab galo maanteena kulli jannatul firdaws ilaahay anagu farmaajo kama xumin laakiin siday noqotay xasan sheekh ilaahay inuu nooga dhigo imaamul caadil waa sax marka ilaahay wuxuu quraankiisa ku leeyahay sab'atu yawm la dhillu illa dhilluhu number 1 waxa imaamul caadil waxa la rabaa dadka in loo dhaxeeyo min jeclaysi la iska dhaafo dalkeena aan adduunyada la tilaabsano marka qof walba mas'uul ah xil baa ka saaran qof walba muwaadin ah xil saaran marka wada shaqeyntu waa bilaabatay hal wada shaqeeyo guusha waa wada gaarnay السلام عليكم ورحمة الله. والله الآدي أدب وما حصلتهاي وجوري يدنا وقف قاضينا ما شاء الله حس الشيخ وحلينا هروس وضياشي كلو كسو شقية دني خير كل إنا عبد الشكور كل وحلينا آدي أدب وما حصلتين شقب ضم بعدك نوض قبطين لكن وحيود وعسكو فوق صدق حس الشيخ وحلينا حس